markale kulanti wanaagsan meel kasta oo naga dheehanaysaan kuna soo dhawaada qodobada warka ugu waaweyn ee telefishinka caalamiga ee Universal waxaana kamid ah gudoomiyaasha baarlamaanada Afrika kulan ay ku yeesheen South Africa ay kaga hadleen kaalinta dhalinyarada Afrikaanka ee horumarinta wadamada qaaradda Afrika xildhibaano ka tirsan maamulka Hirshabelle ayaa waxa ay sheegeen inay dawladda Hirshabelle la xisaabtamayaan si markaasi wixii khaladaad loo saxo waddanka Mareykankuna waxa uu sheegay inuu ciidan ahaan iyo awood ahaanba u diyaar u yahay inuu ku qaado weerar marka loo baahdo waddanka waqooyiga Korea taasina ay ka dambeysay goodinta waqooyiga Korea ay ku goodisay inay Ameerikaanka weerari doonto ilaa iyo dad ka badan 20 ayaa ku dhintay kadib markii laba tareen ay isku dhaceen waddankaasi Masaarida kuwaasi oo ka kala yimid magaalooyinka Qaahira iyo Port Said intaasi daawadayaal waxay ahayd qodobada warka ugu waaweyn haatan isagii oo faahfaahsan markale kulanti wanaagsan meel kasta oo naga dheehanaysaan waa warkii oo faahfaahsan waxaana soo gudbinaya biidnillaahi kariim anigoo ah Maxamed Axmed Xaaji Cagmadhige waddanka South Africa maalmihii ugu dambeeyay waxaa ka socday kulan ay isugu yimaadeen afhayeenada baarlamaanada qaaradda Afrika oo looga hadlayo guud ahaanba horumarinta baarlamaanada iyadoo dhinaca kalena kulamadii ugu dambeeyay diiradda la saaray kaalinta dhalinyarada Afrikaanku ay ka qaadan karaan horumarinta dalalkooda Soomaaliya waxa uga qayb galay afhayeenka baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyo wafdi uu hogaaminayo warbixintana waxa inoo soo diray Caydaruus Cabdi Xasan shirka baarlamaanka Afrika ee ka socda xarunta baarlamaanka Afrika oo ay ka qayb galayaan afhayeenada baarlamaanka Afrika ayaa looga hadlay doorka dhalinyarada qaaradan Afrika ay ku leeyihiin horumarka siyaasadda iyo dhaqaalaha waxaana inta badan afhayeenada baarlamaanka qaaradan Afrika ay ka hadleen in dhalinyarada ay muhiim u yihiin inay qayb ka qaataan siyaasadda iyo dhaqaalaha qaaradan Afrika Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo ah gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya kana qayb galayay kulanka afhayeenada baarlamaanka qaaradan Afrika ayaa sharaxay dhalinyarada doorka ay kaga horumarka siyaasadda iyo dhaqaalaha qaaradan Afrika waxayna intooda badani ka hadlayeen afhayeenada qaaradan Afrika sidii door looga siin lahaa dhalinyarada siyaasadda iyo horumarka qaaradan Afrika Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo sharaxaya doorka dhalinyarada Soomaaliyeed hadaladiisi waxa kamid The first modern Somali political party, the Somali Youth Club, which was subsequently named the Somali Youth League, was established in 1943. The SYL state activists were to create opportunity universal modern education, to develop the Somali language, to safeguard the Somali interests, and to oppose the restoration of markii uu soo idlaaday shirka gudoomiyaasha baarlamaanka qaaradda Afrika ayaa waxa TV-ga Universal kula hadlay banaanka xarunta baarlamaanka Afrika xogayaha guud ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux wuxuuna sharaxayaa waxyaabihii looga hadlay kulanka gudoomiyaasha baarlamaanka qaaradan Afrika maalintii koowaad afhayeenada Afrikaanka ay isugu imanayaan qaaradan Afrika ay isugu yimaadaan baarlamaanka ka dhaxeeya baan African Parliament leeyahay maanta waxa marka hadlayay waa maalintii afhayeenadu ay shirayeen shirkoodu wuxuu aad san ajendaha ku jira wuxuu ahaa kaalinta dhalinyarada sidii looga faa'iideysan in tirada ugu badan ee mujtamacu uu yahay dad dhalinyaro ah maadaama dad dhalinyaro yihiin waa dadka injiinka wada dhaqaalaha dalka marka wuxuu ujeedada shirkani ahaa qodobkan ahaa sidii looga faa'iideysan lahaa dhalinyarada oo yaani si ay dhaqaalaha u soo saaraan oo u wadaan uu ka hadlayay marka waxyaabaha la isla gartaba ah in baarlamaanada Afrikaanku ay sameeyaan nidaam siyaasadeed oo sugaya iyo shuruuc ay sameeyaan oo sugaya mowqifka ama maqaamka ay leeyihiin dhalinyaradu oo ah ku fargareynaya xagga dhaqaalaha talagaliyo kobcinta dhaqaalaha oo for example wadannada qaarkood baanan baa loo sameeyaa in dhalinyarada marka la tababaro qaar farsamo la barayaa qaar waxba la barayaa qaar waxba la barayaa qaar baa bacmisharkiya waxaan jecel marka lacag yar baa la amaahinaya barashada kor loo qaadaa oo waxbarashada lacag badan la geliyaa si dad aqoon loo soo baxaan oo marka ciddii maalgashi rabtaa ay dad isla markiiba diyaar loo helo waxbarashadooda caafimaadkooda in la hagaajiyo waxa kale oo muhiim ah in dhalinyaradu ay noqoto dadka siyaasadda hore inuu soo galaan maaha in la yiraahdo dhalinyaradu waa mustaqbalkay galayaan naaw inay hadda soo galaan oo ay hogaamintii tababaradeedii la siiyo
fursadihii la siiyo dasaatiirta iyo waxyaaba. cabdi xasan TV-ga caalamiga Universal xarunta baarlamaanka Afrika Koonfur Afrika. magaalada Jowharna waxaa ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen qaar ka tirsan xildhibaanada Hirshabeelle iyagoo sheegay in laga maarmaan tahay in lala xisaabtamo dowlad goboleedka Hirshabeelle dhinaca kalena la badbaadiyo dowladdaasi sida ay hadalka u dhigeen xildhibaanada kulanka ku yeeshay magaalada Jowhar. wariyaheena Sabriye ayaa warbixintan inooga soo diray magaalada Jowhar. kulankani oo warbaahinta dibadjoog ee isla markaana ay maanta isugu yimaadeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxay kaga hadleen sidii isla xisaabtan uu dhexmari lahaa xukuumadda dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo baarlamaanka. waxaana kulanka kadib warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle. marka hore aad u mahadsantihiin bahda Universal saa ugu soo qayb gashay maanta kulankan ay xildhibaanada baarlamaanka ay uga tashanayeen ayahooda xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle kulankaas oo ku saabsanaa badbaadinta Hirshabeelle. macnaha badbaadinta Hirshabeelle marka la leeyahay ma aha ereyga badbaadinaha ka garo ereyga oo magaca ka garo ma aha in wax la duminayo wax baa la dhisayaa wax baa la toosinayaa siiqada qaabka wax loo toosinayo waa laga yaabaa qofka inuu si kale u arko laakiin fikirka la isla qaatay oo annaga xildhibaanadii shalay xamar ka yimid kuwii inta joogay kuwii dibadda jiray waxaan isla qaadanay in wax la toosiyo qaabka kaliya ee dood dheer kadib wadatashi kadib dastuuriyan kadib waxaa la isla gartay in hoggaanka Hirshabeelle la iska horleexiyo taasoo aan uladan leeyahay wuxuu ku saabsanay iswarsi wuxuu ku saabsanay isla xisaabtan cid allaala cidda shaqadeeda gudawaysa waxaa noo soo baxday hoggaanka Hirshabeelle oo ugu sarreeyo madaxweyne Cali Cabdullaahi Cosoble in uu ku fashilo dhinacii aan u wakiilanno oo ah in uu hogaamiyo 1,800,000 oo ummad ah oo ku nool qiyaastii Hirshabeelle waa ka duwanta ummadana shacabka wakiilka ka inaan haysta kalkan shacabka bannaanka naga taagan marka qarsoodi waa dhaafta taas. kulanku maanta saasuu ku saabsanay dood iyo mataqaanaa wax isweydiin ka bacdi waxaa la isla gartay in lala xisaabtamo xukuumadda uu madaxweynaha ka yahay mudane Cali Cabdullaahi Cosoble oon dooranay oo 9 bilood bishii 10 u dhalatay ee lalaga yahay ilaa hadda hal arrimo oo baarlamaanka uu horkeenay hadda waa laga leeyahay. waxaad wax ka weydiideen degmooyinka aad hadda magacaabay waxaad fiiridaan wariyaashiina idinkoo maanama saxaafadda qaynuunka Hirshabeelle cutubka 3 qodobka 34 farqadiisa 12 fiiriya asagii aan golaha baarlamaanka herkeeni ay ku dhawaaqay meeshii baarlamaanka inuu horgeeyay ahayd oo ama diidmo ama ogolasho ay ka timaad kadib madaxweynaha lagu celiyo sharciyan ee uu ku dhawaaqa markaas ay ahayd asiga iska dhawaaqa waxa uu dardaray oo soo jirin kula wasiiraan jirin maamul dawladeedaan jirin yani waa arrin la yaab leh oo fajacsan ugu noqotay waxyaalahaas oo dhan markaan aragnay ayaa waxaa soo baxday war xagee wax ka jiraan war balaan xisaabtanno intaan dadweynuhuna dhagax tuurin war aan iska anagu isgaarno saasaa kulanka maanta ku saabsanay. waxaa u sabab aan dhihi karnaa awalan xildhibaanadu uu fahmi waayey muhiimadda iyo wixii laga rabo uu fahmi waayey maxaa yeelay madaxweynaha cidda la xisaabtamayso waa baarlamaanka baarlamaanka hadduu la xisaabtami lahay waxaan dhihi karnaa xaqiiqatan intaan ma dhacdeen balse waxa waaye baarlamaanka oo hawshiisa yacni ka jiiftay. Ismaaciil Cabdulla Sabriye Universal TV Jowhar. maalmihii ugu dambeeyey gobollada qaar waxaa la diiday in la adeegsado wax lagu kala iibsado lacagta shilin Soomaaliga taasi oo loo arkay inaanay ku habbooneen oo dadku ay dollarka jeclaysteen. arrintaasi waxay noqotay mid dhibtay dadka danyarta ah ee iyagu dollarka aan haysan jeebkooduna aanu buurayn. ganacsatada qaar ayaa iyagu albaabada isugu dhaftay ganacsigooda oo iyaga laftoodu diidanaa inay shilin Soomaaliga qaataan. haddaba shirar ku saabsan qaabka iyo sida loo soo celin karo shilin Soomaaliga in wax lagu kala iibsado ayaa waxay ka dhaceen meelaha qaar iyadoo kulankii ugu dambeeyana uu ka dhacay Cadaado oo dhex maray xubno ka tirsan maamulka Galmudug iyo waliba ganacsatada Cadaado taasoo ay ballan qaadeen hoostana ka xariiqeen in shilin Soomaaliga la soo celiyo. maxamed maxamuud oo aadan ayaa warbixintan Cadaado ka soo diray.
kulankan maanta dhex maray madaxda dowlad goboleedka galmudug iyo ganacsatada galmudug ayaa looga hadlay sidii loo isticmaali lahaa lacagaha shilinka soomaaliga oo haatan laga qaadan dhammaan deegaanada galmudug kulanku ay kasoo qayb galeen wasiirada arrimaha gudaha maaliyadda iyo ganacsiga dowlad goboleedka galmudug ayaa si qoto dheer la iskula soo hadal qaaday ahmiyadda ay leedahay in la qaato lacagta shilinka soomaaliga cabdulqaadir axmed doore oo ka mid a ganacsatada galmudug kana qayb galay kulankan ayaa sheegay in ka ganacsato ahaan ay qaadanayaan lacagaha shilin soomaaliga waxaa laga shaqeynaya in dadku isla noolaado in qolo keliyihii noolaanin sidaas darteed anoo ku hadlaya magaca ganacsatada waxaan diyaar u nahay inaan qaadanno lacagtaa wax ku iibinno badeecada dadka ku siino jumlo iyo tafaariiqba waxaan sheegaynaa inaan ku gadi doonno haddii ilaahay idmo in la sarrifi doono socoshada kulankan oo qaatay saacado badan ayaa dowladda federaalka soomaaliya looga codsaday in lasoo saaro lacaga xadidan oo shilin soomaali ah waxaana codsiga goobta ka jeediyey calimaha jaamac gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga galmudug waxaan kaloo maaragtay anoo fursadan ka faa'iidaysanaya dowladda dhexe aan u diri lahaa dhambaal codsi ah inay maadaama iyadu ay maaragtay maamul goboleedyadii oo dhan sal u tahay inay xil iska saarto in la helo lacag xadadan oo ummadda Soomaaliyeed dawladii dhexe la isku raacsanaa u dambeysay wax ka dambeeya ay khaas ahaayeen inay dawladda dhexe xil iska saarto una soo dejiso shacabkeeda wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka galmudug maxamed axmed faarax ayaa sheegay in maamulada galmudug puntland iyo ganacsatada ay ku heshiiyeen in la qaato lacagta shilin soomaaliga wuxuuna tilmaamay in ay muhiim tahay in la xakameeyo qiimaha sarifka kaas oo keenay qalqalka ku yimid lacagta shilin soomaaliga ka maamul ahaan ka wasaarad ahaan maaliyad ahaan u soo jeedinaya inaan isticmaalno lacagta shilin soomaaliga oo gacmaheenna ku joogto waxaa isla qaatay maamul goboleedyada iyo ganacsatada runtii dhammaan waa isla qaadanay shacabkana waa ogeysiinaynaa lacagtaas si hagaagsan in loo isticmaalo waxaa jira si lacagta loo isticmaalo qodobo soo hoosgelaya waxaa ka mid ah lacagaha waxyaalaha qalqalka gelinaya sarifka oo kale ka mid ahay in sarifku maanta uu tago 20,000 berrina uu 30,000 tago markii la isku halay waayana dadka ay ka caraan lacagta shilin Soomaaliga waxaan go'aan ku wada qaadanaa dhammaanteen haddaan Puntland nahay haddaan Galmudug nahay iyo ganacsatadeedaba in hal baris uu noqdo sarifka maxamed maxmuud waadan TV-ga caalamiga Universal cadaadib magaalada Ceergaabo iyo waliba magaalada Laascaanood ayaa waxaa ka bilowday in la qaybiyo kaararka iyadoo wufuud ay u anbabaxayeen deegaanada kala duwan si dadka qof walba kaarkiisa xaq u leeyahay loo siiyo magaalada Ceergaabo haddaba wufuudda ka baxday iyo sidii arrinku ahaa Yuusuf Xasan Cade ayaa warbixintan inooga soo diray guddida komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta magaalada Ceergaabo ku qabtay munaasabad ay ku kala anbabixinayaan shaqaalaha iyo gaadiidka sida agabka kaararka codbixiyayaasha oo Brito si toos ah uga bilaabmi doona guud ahaanba gobolada Sool iyo Sanaag gaar ahaan gobolka Sanaag munaasabadan lagu anbabixinayay shaqaalaha ka shaqayn doona qaybinta kaararka codbixiyayaasha ee gobolka Sanaag oo lagu qabtay jaamacadda Sanaag University ee magaalada Ceergaabo ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay afayeenka komishanka doorashooyinka Soomaaliland Siciid Cali Muuse iyo Commissioner Cabdiraxmaan Cismaan Aadan oo labadooduba faahfaahin ka bixiyay tirada goobaha codbixiyayaasha ee maalinta Brita ka bilaabmi doonto qaadashada kaararka codbixiyayaasha waxaana hadaladoodii ka mid ahaa sidan maanta waxa halka ka baxaya baabuurtii faraha badnayd ee u kala baxayay goobihii gobolka uu ka koobnaa iyo shaqaalihii oo raacaya iyo ciidamadii ammaanka baabuurta qaarkood waaba baxeen iyo shaqaalihii saaka aroortii hore waqtigan aynu joognana intii kale waa kuwa kan halka safka ku jira markay soo qaateen qalabkoodii waxay u jeedaan markaasi inay dhaqaaqaan oo ay tagaan goobihii ay ku qoraayeen sidii ay u kala fogaayeen ayaanu u kala horraysiinay oo ay u kala baxayaan si ay u gaadhaan waqti wanaagsan oo ay qalabkooda iyo waxooda u rakibtaan berito oo sabtina haddii alla yari gobolka Sanaag dhammaantii goobaha ku yaala ee ka bilaabato kaar qaadashadii hawsha maanta halkan ka socotay la kala dirayo waxay u baxayaan gawaaridani dhammaan goobihii waxaanay ka socon doontaa 5 cisho kadib waxaa dib u soo noqon doona dhammaan goobaha la geeyey kaararka marka laga reebo degmada Ceergaabo kaararkaas waxay ku soo noqon doona dhammaanba jaamacadda Sanaag dib baa loo kala hufayaa 2 cisho dabadeetana maalinta saddexaad waxaa lagu celin doonaa degmooyinka caasimadaha ee kala ah Garadag
ceelaf weyn iyo baran degmada ceergaabo iyadu waxay ka soconaysaa 7 cisho halka kuwa kale noqonaysa 5 7 cisho markay dhamaatana waxay ku soo noqonaysaa iyana jaamacadda Sanaag dabadeedna goobihii miyiga ceergaabo laga soo xireeyay oo jaamacadda Sanaag sii yaalay iyo goobaha magaalada ceergaabo laga soo xireeyay oo lagu kordhiyay jaamacadda Sanaag ayaa dib loo habaynayaa waxa dib loogu soo celinayaa goobo tirsan oo kamid ah magaalada ceergaabo waxaana ka socon doonaan 14 cisho degmooyin kale waxa ka socdaan 14 cisho sida ayay inagu soo go'aan doontaa insha Allah billahi kariim waxa iyaguna munaasabadaasi ka hadlay xubno ka socday saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland kuwaas oo bulshada reer Sanaag ugu baaqay inay qaataan kaadhadhka codbixiyayaasha si ay ugu doortaan murashaxa ay doonayaan anu waxaan la dardaarmayaa qolooyinka mas'uuliyaddu ay saarantahay gaadiidka darawallada gaadiidka mas'uuliyaddu waxay ka saarantahay dhalinyarada iyo ciidanka saaran inay si asluub loo wadaan ilaa iyo bartii ay geynayeen ay gaarsiiyaan dhalinyarada kaadhadhkaydii si daaway dhaarsan yihiin waxaan sax ahayna ku qasbina waxa ay bilaabmi doontaa kaadh qaadashadu berito oo sabtiya bishuna tahay 12 waxaa dadweynaha lagu wargelinayaa inay u diyaar garoobaan sidii ay kaadhadhka u qaadan lahaayeen yuusuf cabdi xasan cadde telefishinka caalamiga Universal magaalada Ceerigaabo magaalada muqdisho xarunta dalka Soomaaliya ayaa marka la fiiriyo dhinaca ganacsigu waxa uu noqday mid sii kordhay iyadoo dadka ganacsiga ka qayb qaadanaya ee gudaha dalka ku labanayana ay aad tiradooda u badatay iyo dadka kale ee sida caadiga u degaya oo aan ganacsato ahayn taasi waxay keentay in warar ay soo baxeen sheegaya in kirada guryaha la dego ay markaa kor u kacday marka la barbar dhigo waqtiyadii la soo dhaafay arrinkaa waxa uu ku wargalay wariyahana Cabdicasiis Ibrahim Ahmed Okay oo la sheekaystay dadka mas'uulka ka iyo dad kaleba qaabka iyo sida ay wax u kordheen iyo tiradu intay lacagtu warbixintana Muqdisho ka soo diray way jiraan meelo inta la kireysto oo dadkii kireystay oo dhalinyaro ah u badan inay wadi waayaan lacagtu aad u badan oo fooq aqli ah meelihii suuqyadii iyo dukaamadii u dhawaayeen lacagtooda lama kireyn karo dadkan dhibay ku qabaan shaqaalihii dhibay ku qabaan ummadii dhibay ku qabaan markaan waxaan leeyahay dadka inay u naxariistaan shacabka inay u naxariistaan waa qof Soomaali ah waa muslim qiimaha lagu kireeyo guryaha ku yaala qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho aad ayuu u sarakacay iyadoo taasi ay sababtay culayska dadweyne ee degmooyinka qaar ka jira tusaale ahaan guryaha qaar ee deegaanka ah waxaa qolkiiba lagu kireeyaa lacag u dhaxaysa $100 ilaa $120 halka sidoo kale dukaamada 40 mitir ilaa 50 mitir lagu kireeyo lacag u dhaxaysa $700 ilaa $500 waana qiimo aad ugu sarreeya marka loo eego daruufaha dhaqaale iyo midda amni ee dalka ka jirta qiyaastii 6 sano ka hor qiimaha lagu kireeyo guryaha iyo goobaha ganacsiga aad buu ugu yaraa heerka maanta oo ay joogaan waxaana jira tusaale muuqda oo arrintaasi la xiriira hadda se waxay taagan tahay kira aan la xamili karin oo gurigii maanta lagu kireysan jiray 50 shilin waxaa laga hadlaa 50 amba $60 calaa qol marka la yiraahdo guryo waxaa arkay oo qaarkood villooyin amba macna laba dabaq oo la leeyahay $1,200 $1,300 la leeyahay marka ninkii maanta oo ku shaqeynayo shaqadiisa ay tahay $250 amba $200 ku shaqeynayo title-kiisa uu yahay shaqada $200 hadii guriga looga ijaaro $200 amba $300 looga kireey ma maareyn karaa waay macna noloshii oo asiga oo ku noolay amba ninka oo wax ka kireysanay xaqiiqada jirta ayaa ah in farqi weyn uu u dhaxeeyo nolosha magaalada Muqdisho oo ah caasimad ka soo koobanaysa colaado muddo dheer ka jiray iyo magaalooyinka waaweyn ee bariga Afrika sidaasi waxaa qaba Cabdirashiid Artan Cabdiraxmaan oo ah bare cilmiga magaaleynta ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho marka aan u barbardhigno Addis Ababa iyo Kampala iyo Nairobi waxaan dhihi karnaa xagga magaalooyinka qaarkood hadda sida hadda Nairobi oo kale waa saagdowna laakiin waxa ku kala duwanahay service-ka laga helayo oo waxa yaabay marka 400 aad ka bixisid guri Nairobi waxa laga yaabaa in security nadaafadii biyihii korontadii aad wax rabto ku samaysan kartid laakiin magaalada Muqdisho markaad tahay single oo kaliya tahay qol 100 aad ku degan tahay marka family tahana 300 aad ku degan tahay ama 400 male koronto male biyihii male
waxaas dhan waxna adiga ku saaran yihiin way ka sareysaa qiimaha dowladda Soomaaliya oo ay mas'uuliyad ka saaran tahay jaangoynta qiimaha nolosha ee shacbigeeda ayaan weli dhammaystirin sharciga ay ku maamuli lahayd adeegyada la xiriira howlaha guud iyo guriyeynta si looga hortago dhibaatooyinka dhaqaale ee dhinaca deegaanka. sidaad la socotid waxa lisla qaatay oo hadda lisla ogolaaday in wax walba ay ku xiran yihiin sharcigi sameyntiis wanis oo soo dhamaado sharcigaas isla ogolaashihiisa wax walba waa sahlaananayaan laakiin hadda adiga oo aan sharci u haynin qofkii waxa kala hortagtidba waa adag tahay inaad ku tiraahdid maxay ahayd taladaana wasaaradda keentay qaado. shaki kuma jiro in baahi weyn loo qabo xalka gaaridda arrintan iyo helitaanka nidaam sharciyeed oo looga baxo sar u kaca baahsan ee qiimaha lagu kireeyo guryaha magaalada Muqdisho. dowladda day dhul bixin samayso oo dhul ay dhiibto oo dadkii deegaano badan ay ku fidaan oo wax sharci ay helaan dadkii hadda sharciga iyaga u hoggaansan ba warabaan laakiin ma helaan dhul bixin ma la helo mana la siiyo marka dhul bixintaas hadii la helo Cabdicasiis inuu culayskaas u yaraa lahay oo magaaladan ay weynaa leedaan ayaan aaminsanahay kama lahan. Cabdicasiis Ibrahim Ahmed Okay TV Universal magaalada Muqdisho. magaalada Laascaanood ee gobolka Soolna waxaa laga qabanqaabiyay tababar la xiriiray sidii loo tababari lahaa dadka ka howlgalaya kaararka codbixinta iyo waliba qaybintooda iyadoo ujeedku uu yahay in guud ahaanba deegaanada Sool la gaarsiiyo kaararka taasoo ka qayb barnaamijka kaar qaybinta Somaliland ee doorashooyinka soo socda. Maxamed Shaqal ayaa warbixintan Laascaanood ka soo diray. guddiga doorashooyinka Somaliland oo ku howlan kaar qaybinta codbixiyaasha ayaa maanta si rasmi ah u kala diray shaqaalihii gaadiidka iyo ciidamada ilaalinaya howlgalka kaar bixinta oo la gaarsiin doono ilaa 177 goobood oo horey looga diiwaangeliyay degmooyinka Laascaanood Xudun Taleex iyo Caynaba oo maalinta berriti ah ka bilaami doonto ayaa shaqaalihii ka shaqeynayay tababar lagu siiyay magaalada Laascaanood waxaana la arkayay gaadiidka ka howlgalaya kaar bixinta codbixiyaasha oo qaadanaya agabkii ay ku howlgali lahaayeen sidoo kalena ciidamada booliiska iyo ciidamada militariga ayaa ka qayb qaadan doona ilaalinta shaqaalaha iyo agabka lagu howlgalayo. shir jaraa'id ay si wada jir ah u qabteen guddiga doorashooyinka oo hogaaminayo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Cabdiqaadir Iimaan Warsame ayaa ku booriyay shacabka inay qaataan kaarka codbixinta. Jimcaha waa maalintii aynu ku ballanay in gaadiidkii agabkii shaqaalihii ay u baxayaan 177 goobood oo ah gobolka Sool 177 ka goobood ayaa maanta loo kala baxayaa hadday tahay Laascaanood gudaheeda iyo dibaddeedaba hadday tahay Xudun Taleex iyo Caynaba oo Taleex 25 goobood ah Xudun oo 30 goobood ah iyo 35 goobood oo Caynaba ah inta soo hadhay oo ah magaalada Laascaanood gudaheeda iyo dibaddeedaba waxaanu Ilaahay ka rajaynaynaa subxaanahu wa ta'aala inuu inoo fududeeyo bilowga dhammaystirkii kaar qaybinta oo ah maanta ay ugu dambayso labadii gobol ee Sool iyo Sanaag. mas'uuliyiinta saddexda xisbi qaran ee kulmiye wadaniga u cid ayaa dhankooda ku ammaanay hawsha culus ay hayaan guddiga doorashooyinka waxayna ugu baaqeen dadweynaha inay qaataan kaarka codbixiyaha oo halkan aynu ku kala dirayno magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool agabkii iyo shaqaalihii kaar bedelka doorashooyinka ee gobolka Sool ilaahay inoo suura galiyay markooda mahadnaqaynaa marka labaadna waxaynu u mahadnaqaynaa komishinka doorashooyinka oo hawl weyn oo runtii baaxad leh inoo hayay aanu rajaynayno labadan gobol ee maanta aynu hawshoodii kala diraynaa inay noqon doonto soo gebagabayn doonto arrintii diiwaangelinta doorashooyinka oo markii hore aynu qabanay maantana kaar bedelka aynu samaynayno komishinka waa uga mahadnaqaynaa shaqada weyn ee baaxadda ay qabteen ugu horreyn ilaahayba mahad leh ilaahay nagu simay inaynu maanta halkan ku kalaama bixinno shaqaalihii iyo agabkii labadii gobol ugu dambeysay muxuu ahaa kaar bedelka oo Sool iyo Sanaag ah adala ilaahay nagu simay baan ugu mahadnaqaynaa mar labada waxaan soo jeedinaynaa in muhiimadda gaarka la tixgeliyo oo tacabka badan la soo geliyo komishinka qaranku waa labadii ugu dambeeyay gaar ahaan gobolkan oo sida Cabdirasaaq sheegay ahaa gobol dad badan ku nool yihiin laakiin sidii komishinkuba hore u sheegay qofna qof uma qaadi karo si khaldana kaar looma qaadi karo
laakiin qof waliba inuu kaadhkiisa qaato waa xuquuquu leeyahay. maxamed shaqalle universal t v laascaanood. haween ka kala yimid qaybaha uu maamulo maamulka gobolada dhexe ayaa waxaa tababar loogu furay magaalada dhuusamareeb iyadoo weliba qabanqaabada ay lahaayeen haweenweynaha halkaasi ku dhaqan. warbixin arrintaasi ku saabsan maxamed cabdiweli tooxow ayaa inoo soo diray. oo ay ka soo qayb galeen 40 hablood oo isaga kala yimid deegaanada uu ka arrimiyo maamulka gobolada dhexe ayaa maantii lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud iyadoona haweenka lagu dhiirigelinayay inay bartaan xirfadaha farshaxanka sida dhar tolista, cilaansaarka iyo dhar karinta si noloshooda ay ugu maareeyaan maadaama haweenkani wax la barayo badankooda ay yihiin kuwa isugu jira qoysas danyar ah iyo agoon. taasina ay keentay in ururka haweenka magaalada dhuusamareeb ay dadaal dheer u galeen sidii ay wax ugu qaban lahaayeen haweenkani. ugu horreyn goobta waxaa ka hadlay qaar ka mid ah ururka haweenka magaalada dhuusamareeb waxaana ay ku dheeraadeen ka hadalka xirfadani ay baranayaan haweenkani. saaka waxaanu meeshaan ka ilaaminaynaa inaanu awal waxay ahayd degmada dhuusamareeb hadda gobolka oo dhan sida Cadaado sida Caabudwaaq sida Xeraale maxaan ku yiraahdaa Tabaan Guriceel inaanu sii ballaarino oo degmooyinkii gobolka oo dhan hoos imaan jirnay aanu u ilaamino oo laga furo hadda maxaan ku yiraahdaa sidaas oo kale hawlaha waxaa la barayaa xirfadihii ay baran jireen ururka haweenku dadka liitaha oo agoomaha ah ama aan waxba haysan ayaanu haddii aanu ururka haweenka nahay aanu rabnaa inaanu maaragtay kor u soo qaadno maadaama hadda ka hor aan cudurro nagala soo qayb qaadan oo annagoo ururka haweenka iyo dowlad goboleedka gobolada nada dhexe iskaashanayna maahan aan dowladda federaalka oo gacanna siin waxa ayadaa oo gacanna siin ayna jirinin inay nagala qayb qaataan ballaarinta farshaxanka gabdhaha danta yar ee agoonta masaakiinta ah xifradda u sameynaya inay nagala qayb qaataan ay nagu soo dhaweeyeen waxna nagala qayb qaataan inay maxay naga saacidaan intii micna ku shaqale oo hay'adahaas maxay deeqaha bixiya ayaa waxaan ka codsanaynaa inay maxay arrinta ku soo dhawaadaan annagana aan maxay sidii habseen leh oo wanaag leh oo maxay wada hadal socod leh inaan wada qayb qaadano oo wada shaqeyno sidii gobolada ay u gaarsiin lahaayeen sidii dumarku ay isku filaansho u gaari lahaayeen waad ogtiin adduunka dumarku waa dhabartii Soomaaliya markii xaqiiqo la hadlaayo waad ogtiin dagaalada burburkii Soomaaliya waxa kaabay oo hor u ka qaaday waxay dumarkii ahaayeen haddii aan dumar jirin Soomaaliya ma la arkin Soomaaliya. qaar ka mid ah hablaha iyagu ka faa'iideysanaya xirfadaha farshaxanka oo aanu wax ka weydiinay ahmiyadda ay u leedahay inay bartaan xirfadani ayaa sheegay. halkan waxaa isugu nimid xirfad shaqo aniga waxaan ka mid ah gabdhaha dharka kariya waxaan jeclaanayaa inaan dadaalkeena noo sii bijaaro sida dharka u karin lahayn ana harqaanayaan baranay hadda bilaawayo ahaa haddana waxaan rabaa inaan sii barto insha Allah ilaa dooraali haweenka dhigaaga maxaa ugu baaqaysaa jeclaan wax baaqaya ayagana inay si fiican xirfadda wax uga qayb qaataan waxbarasho badan ayaa meesha ka socoto. gunaanadkii munaasabadda ayaa waxaa hadallo kala duwan madasha ka sheegay gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka maamulka gobolada dhexe Cabdilaahi Gurey iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka maamulka gobolada dhexe Cali Baashi Farax Cali waxaana labaduba ay kula dardaarmeen haweenka inay sii wadaan dadaalka ay ugu jiraan sidii haweenka ay wax u bari lahaayeen sida agoomaha dayacan dhibaatooyinka tirada badan oo jira markay arkeen inay dib u soo celiyaan farshaxankii arrinta aad baan ku soo dhaweynaynaa aad baad u mahadsantihiin xafladan quruxda badan oo aad salka ugu dhigaysaan insha Allahu Kariim sida u horumarin lahaydeen waxbarashada gabdhaha goboladan dowlad goboleedka gobolada dhexe hoos yimaada guud ahaan dowlad goboleedka gobolada madaxdiisa iyo dhammaanteen inaan ka midnahay wada dhaqaajinayno barnaamijkan aan ku ballanay halkan haddii Ilaahay idmo. Maxamed Cabdiweli Tooxow TV-ga Universal Dhuusamareeb. wararka ka imanaya magaalada Hargeysa ayaa waxa ay sheegayaan in markii ugu horeysay ay hadleen qaar ka tirsan xildhibaanada aqalka wakiilada kuwaas oo arkayay in wax la isdaba mariyay kadib markii dhowr maalmood ka hor halkaasi lagu doortay gudoomiyaha cusub ee aqalka wakiilada Somaliland oo doorashadaasi kadib dhinaca xukuumaddu ay taageereen ninka ku soo baxay laakiin xisbiga mucaaradka ee wadani iyo xubno kale ay u arkeen iyo waliba xildhibaanadii wax doortay in arrinku sidaa uu ahayn ee uu ka bedelan yahay. haddaba markii ugu horeysay ayaa xildhibaanadaasi sheegtay in wax la isdaba mariyay ay ka hadleen magaalada Hargeysa. Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray.
39 xildhibaan oo ka mid ah golaha wakiilada Somaliland isla markaana codkooda siiyay inuu noqdo gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Talyanle doorashadii ka dhacday golaha wakiilada 60 bishii 8aad oo ayaa markii ugu horeysay la hadlay warbaahintan waxaanay sheegeen inay codkooda siiyeen Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Talyanle inuu noqdo gudoomiyaha golaha wakiilada balse codkaasi la istaba mariyay iyagoo arrimahan ka hadlayna waxa kamid ah hadaladoodii waxaan gacantayda oo doortay anigu oo si cod siiyay Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle aniga oo ah xildhibaan Cabdiqaadir Jaamac Xaamid waxaan codkaygii siiyay Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle aniga oo ah xildhibaan Maxamed Xaaji Yuusuf Axmed Waabeeyo waxaan codkaygii siiyay Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle anigoo magacaygu yahay Maxamuud Dunkaal Guutaale qoor codkaygii siiyay labadii musharax ku tirtamayay gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle anigoo ah xildhibaan Ibraahim Mahdi Buuba waxaan codkaygii siiyay Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle anigoo ah xildhibaan Cali Xaaji Maxamed Muuse waxaan codkaygii siiyay Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle xildhibaan Maxamed Faarax Qabile inaan codkaygii maanta bishii 6 siiyay Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle anigoo ah xildhibaan Xaashi Xuseen Caabi inaan codkaygii siiyay Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle anigoo xildhibaan Aadan Maxamed Huriye mataana laygu naanayso codkaygii waxaan siiyay maanta Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Talyanle anigoo ah xildhibaan Cabdulqaadir Askar inaan codkaygii siiyay Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle anigoo ah xildhibaan Cabdilaahi Axmed Yuusuf Axmed Madar waxaan codkaygii siiyay Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle anigoo ah xildhibaan Xasan Muuse Hufane waxaan halkan ku cadaynaynaa codkaygii siiyay Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle anigoo ah xildhibaan Sayid Elbi Rooble waxaan codkaygii siiyay halkan ku cadaynayaa inaan codkaygii siiyay xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle codkaygii maanta oo bishu ay tahay 6 waxaan siiyay Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Talyanle maanta oo xada 6 bishii 8aad 2017 waxaan codkaygii siiyay Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle waxaana ka mid ahaa 39 xildhibaan ee u codeeyay Cabdiraxmaan Talyanle anigoo ah xildhibaan Cabdulqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde waxaan halkan ka cadaynayaa doorashadii saaka ka dhacday golaha wakiilada waxaan cadaynayaa inaan codkaygii siiyay Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Talyanle xildhibaan Baar Saciid Faarax waxaan u codeeyay Cabdiraxmaan Talyanle anigoo miirkayga iyo maankayga qaba Sooniya codkaygii u siiyay Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Talyanle anigoo ah xildhibaan Jaamac Xasan Aadan waxaan codkaygii siiyay oo si kalsooni ah u siiyay Cabdiraxmaan Talyanle anoo ah Cabdi Hiiradorfa xildhibaan Cabdi Hiiradorfa codkii maanta golaha wakiilada ka dhacay bish gudoomiyaha loo codeynayay codkaygii waxaan siiyay Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle wahagaag xildhibaanadaasi waxay ahaayeen xildhibaanada codka siiyay ninka iminka ay sheegeen oo ah ninka doorashada la tartamaya ninka kale ee isagu markaasi la doortay waxaanay caddeeyeen xildhibaanadan iyaga ahi in wax la isdaba mariyey oo halkii ay ahayd tiradu inay noqoto 39 dhinaca Cabdiraxmaan Talyanle aanay noqonin ee dhinaca kale ay noqotay taasina waxay ahayd mid muran dhalisay maalmihii ugu dambeeyay oo dhinaca xukuumaddu ninka ku soo baxay isagu markii doorashada lagu dhawaaqay ay taageereen laakiin qolyaha kale ay u arkeen inay arrintu taa ka bedelan tahay oo wax la isdaba mariyay iyadoo weliba wararkii hore aad ku dhahaateen wariyaasheenna oo soo tabiyey in xabadii ay ka dhacday goobtaasi wixii warar ee ku soo kordha arrimahan iyo xaalku sida uu noqdo iyo murankani halka uu saldhigo wararka iyaga dambe ayaad ku dheehan doontaan biidnillaahi kariim markana magaalada muqdisho magaalada muqdisho waa muraayadii dalka Soomaaliya waa xaruntii dalka Soomaaliya malaayiin ayaa ku nool maalin walbana taga iyadoo ujeedku uu yahay inay ka ganacsadaan ku noolaadaan waxna ka bartaan si ay ula saan qaadaan magaalooyin kale ee waaweyn ee dunida taasoo laga arkayay waqtiyadii ugu dambeeyaba
huteelada waaweyn ee casriga ah ee ku soo badanayay maalinkii maanta ahaa xildhibaano ka tirsan labada aqal iyo weliba mas-uuliyiin kale oo dowladda ka tirsan iyo ganacsato ayaa waxa ay ka qayb galeen furitaan la furayey hoteel weyn oo lagu magacaabo royal warbixin arrintaasi ku saabsan zakariya maxamuud timacadde ayaa muqdisho ka soo diray furitaanka xafladda hoteelka cusub ee royal plaza hotel ayaa maanta lagu qabtay hoolka hoteelka waxaana ka qayb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda xildhibaanada labada aqal iyo guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horreyn waxaa daahfuray hoteelka madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Suldaan Cabduqaadir Xaaji Maxamed waxaana mas'uuliyiintii ka hadashay ka mid ahaa mas'uuliyiin kale oo ka socotay dowladda Soomaaliya sheeko waa ka dhayahay waxaa ugu casuumay daafurkiisana inaad leedihiin waxaa lagu cabsanayaa meelo fogfog baan jirnaayo inaad hoteelka wada qabtaan gacantana ku haysaan baa idinka codsanaynaa tan labaad haddaad isweydiinaysaan hoteelka labada madaxweyne goole ee Jubbaland waxay u yimaadeen hoteelka saldhiggiisa Jubbaland baa laga leeyahay hoteelkan halkan midnaha lagu furay haddee sadar muuqda su-aal ka dhan faahfaahin inaan ka bixino waqti badan aanu ku dilno runtii uma baahna waxaan leeyahay royal palace hotel wuxuu ku soo biiray horumarka ka socda gobolka banaadir asal marka waxaan idin soo dirayaa agaasimaha guud ee wasaaradda wixii ka qaybgalka iyo si aad u dhamaystirtiin howlaha dhammaan inta invitationkeena soo gaaran oo ugu horeeyaan madaxda qarankana ka soo qaybgalkii waa loo mihin Taabid Cabdi Maxamed gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sheegay in ay garab taagan yihiin cid walba oo ka qayb qaadanaysa horumarka dalka waxaa naga sharaf noo ah runtii ka gobolka Banaadir ahaan in aan mar walba garab taaganahay aan dhiirigelinayno horumarka dhinaca ganacsiga waxay tusaale u tahay horumarka uu gaarayo gobolka Banaadir maalinba maalinta ka sii dambayso xarun qiimaha leh taariikh lagu leh kulligeena maanta in daahfurkeedii aan isugu nimaadno oo gobolka Banaadirna maanta runtii ay ka go'an tahay inuu dhiirigeliyo garab istaago horumarka ganacsiga noocan oo kale ah insha Allah way naga go'an tahay inaan garab istaagno waxaana ugu dambeyn soo gabagabeeyay gudoomiyaha xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdulaahi halka inay noqoto meel dhaqanka Soomaaliyeed lagu ilaaliyo oo lagu koriyo sida la ajligeed waxaan soo jeedin lahaa magac Soomaaliyeed oo muhiim ah oo salkiisu noqonayo inay meeshani noqoto meeshii dhaqanka Zakariya Maxamuud Timacade Universal TV Muqdisho halkaad warkaas sida tooska ugala socotaan waa telefishinka caalamiga ee Universal Studio ku yaala London biidnillaahi kariim waxaa inoo soo socda warar ku saabsan Donald Trump oo sheegay ciidankoodu inay diyaar u yihiin inay cardaadiqaha ka dhigaan waqooyiga Kuuriya oo iyaga laftooduna u goodinaya Ameerikaanka oo leh gantaaladeenu waa idin soo gaaraan iyo boqortooyada Morocco oo codsatay 2026 in ay martigeliso koobka kubadda adduunka ee FIFA balse marka hore qadar xayeysiisa waa sharikadii xawaalada Amana Express oo ku baahsan dunida oo dhan oo idin ammaan gelisa wax kastoo aad ku ammaanaysataan sharikada xawaalada Amana Express amaanadiina ayay idin ammaanaysaa oo idin geystaa goob kasta iyo goor kastaba sida ugu dhaqsaha badan abwaaniintii horaa tiri sharikada Amana Express waa loo aayaa oo waa lagu abshiraysaha meel kastoo aad joogtaan yaan la moogaan inaad xoolihiina aad ku ammaanaysataan kuna dirsataan sharikada xawaalada Amana Express wixii faahfaahina ee Amana Express shaashada ka daawada Amana online adeegeeda waa loo aaye Amana online adeegeeda waa lagu abshiraystay
horaa loo yidhi saadku hawl ma leh oo habsaan ma leh oo halkee ma leh waa hubsoo qura haddaba habka saad adeegso si lacag dibadda lagaaga soo diro ama adigu aad lacag dibadda ugu dirto lacagta dibadda lagaaga soo dirayo ku hel saad adigoo isticmaalaya xawaaladaha casriga ah gudaha iyo dibaddaba halo السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام وكما والله محمد اسمه وناكسين والله محمد إن هذا ريوان وأنا وناكسين والله لست سكر مو وناكسين محا سوق خردمات والله الجيل عبيو يحدون والله إنكم عبوا ساد ومقرنسا خانكم بيها كم حيانك ساد ملذين ها والله يفرون ها هاي إن هذا ريوان كان قصة دريا هاي والله أنا هذا سنين والله إنك عارف walaal waa biilkii lambarkay ku dir maasha allah xawaalad saad degdeg badana marka aad dalka gudihiisa lacag ka dirayso ee aad isticmaalayso saad service gal saadkaaga dooro laba oo ah lacag diris ka sii dooro xawilaad kadib dooro xawaaladda dibadda sii dooro haddana shirkadda aad doonayso inaad lacagta ku dirto haddaba ha mogaanin telesom sad service iyo xawaaladaha casriga ah taaj express well remit bakaal express iyo tawakal hami express mar walba meel walba ninkii hiigsada heegada cirka haleela meeshii habboon ee hawd iyo nugaal hareeraha idil adduunka had walba halkaad ka joogto hami baa kuu diyaaray ka beegso hufnaan adeeg xawaaladeed horseed iyada hoggaane u hiili ubadkiyo haweenko hore hadda waa horey u gaar hami express lacagta soo dir kuna soo dir xawaalada hami express jimce axad ciidda hakad kaa gelin mayso hami express heegan bay ku yihiin shaqaalaha hami express ee ku sugan daafaha adduunka hami express ku qaado kaash ka qaado bangigaaga kuna qaado moobeelkaaga haddaba wixii faahfaahinintaasi dheer fadlan kala xiriir ciwaanada shaashada kaaga muuqda sharabkani mudan camba miirano oo macaan badan manqaboojiyo araad meershaha dhallaanku muhdaan midha saafiya way maroojeen mashiidna casriya matidana maqribiyo subax ka mabsuudee yalla moogaan miiganiyo magaalooyidil mela joogaan caruur mangada loo macmiila marqaan badana furto macaan badana furto qumaniya qumanow aqalkiina quruxda badan yaa qalabeeyey waa dukaanka loo qiray qalaabaynta guryaha loo wada riyaaqay soo booqa mar qura indhaha ku qanciyo dukaanka adeega casriga evc blas ku kaydso ku shuba airtime oo ku adeego haqabtirka baahidani horay in loo tallaabsado hormuud baahirgelisoo hawadaa sare gaysay evc blas service adeega casriga evc blas dalka hooya dhammaan qof kasta ahanayo loo riyaaq evc blas service ku shuba airtime oo kula hadal eheladaada iyo saaxiibbada hal kastaaba ha joogin dal iyo dibad wehel weeye hormuud har iyo habeen ku adeego ku bixi biilka telefoonka biyaha korontada waxbarashada iyo kiloo dhan evc blas service ku dukaamayso hanka baahidaadiyo
ku adeego mar kasta EVC Plus Service. EVC Plus ku xira Salaam Bank adoo joogo halkaaga ku kayso oo ka isticmaal hadba intii aad rabto. EVC Plus Service oo isticmaal hanaanka bulk payment oo ku bixi mushaarka shaqaalaha. Wixii intaas dheer hadaba kala xiriir 101 ama 141 mar kale kulanti wanaagsan meel kastoo aad naga dheehanaysaan. madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump oo isagoo fasax ku jooga gobolka New Jersey ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Ameerikaanku ay diyaar u yihiin waqti kasta inay dagaal ku qaadaan waddanka Waqooyiga Kuuriya, taasina ay ka dambeysay markii maamulayaasha Waqooyiga Kuuriya ay ku goodiyeen inay mar kasta weerari karaan Pacifiga ciidamo ka fadhiya waddanka Mareykanka oo ay gantaaladooda ay gaaraan. madaxweyne Donald Trump waxa uu sheegay in aad ay ugu dadaaleen maamulayaasha North Korea ama Waqooyiga Korea inaan wada hadal arrinka lagu dhameynin, laakiin ay doonayaan inay dhibaato adduunka ka abuuraan. goor dhaweyd oo uu hadlay qoraalna uu sameeyey, Donald Trump waxa uu sheegay in Waqooyiga Korea Ameerikaanku uu ka dhigi karo sida wadamada qaar uu ka dhigay ee dunida markii loo caalwaayay. dhinaca kalena madaxweynaha waddanka Waqooyiga Korea Kim Jong Un ayaa waxa uu sheegay in Ameerikaanku uu doonayo biyaha Korea inuu ka dhigo goob nuclear-ka lagu tijaabiyo. arrintan iyada waxay tahay dhiilo xoog leh oo u dhaxaysa labada dhinac marka loo fiiriyo Waqooyiga Korea iyo waddanka Mareykanka. laakiinse xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Rex Tillerson iyo xogayaha gaashaandhigga Ameerikaanka James Mattis ayaa labaduba waxay sheegeen in loo baahan yahay inaan dagaalka lagu degdegin maadaama cawaaqib xumo uu keeni karo, balse la doonayo wadamada ku yaala gobolku inay kaalin ka qaataan sidii arrinta dhinac kale loogu dhigi lahaa oo dagaalka looga fogaan lahaa. dowladda China, South Korea iyo Japan ayaa dhowr jeer isku dayay inay abaabulaan wadahadal ku saabsan in Waqooyiga Korea cagta ay u dhigto xalka, laakiin taasi iminka aanay muuqanin. dhinaca kale ra'iisul wasaaraha waddanka Australia Malcolm Turnbull ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Australia ay diyaar u yihiin in ay dagaalka galaan haddii ay markaasi weerar la qaado labada dhinac, isagoo sheegay inay la safanayaan dhinaca Ameerikaanka oo ay markaa fulinayaan heshiis u dhaxeeya labada dhinac. Malcolm Turnbull waxa uu sheegay sidoo kale haddii Australia weerar lagu soo qaado Ameerikaanku inuu diyaar u yahay inuu markaasi la safto waxna uu la qabto. ninkan lagu magacaabo amaba hogaamiyaha waddanka Waqooyiga Korea Kim Jong Un waxa uu sheegay in jazaa'irka lagu magacaabo Guam ciidamada ka jooga Mareykanka ay baabi'in karaan, iyadoo weliba uu sheegay in halka ay degan yihiin 160,000 oo ah dad haysta dhalashada Ameerikaanka. arrintan iyada ayaa waxay u muuqataa mid iminka ka faraha ka sii baxaysa kadib markii cara xoog leh Ameerikaanka iyo saaxiibadiisa ay ka qaadeen markii bishii July ee la soo dhaafay 2 jeer gantaalada qaarad ka qaarad ay tijaabiyeen maamulayaasha iyo ciidamada Waqooyiga Korea. wararka ka imanaya waddanka Masaaridu waxa ay sheegayaan in 2 tareen oo ah kuwa rakaabku ay isku dhaceen, taasina ay keentay dhiilo ah in ilaa iyo 36 ruux ay dhintaan, dad 120 ka badanina ay dhaawacmaan. tareenada ayaa mid ka midii waxa uu ka tegay magaalo madaxda waddanka Masaarida ee Qaahira, kan kalena Port Said magaalada lagu magacaabo, waxayna iskula dhaceen dhulxeebeedka magaalada Alexandria. wasaaradda caafimaadka ee waddankaasi ayaa waxa ay sheegtay in markiiba lagu dadaalay in gargaar la gaarsiiyo goobta dhiiladu ay ka dhacday, iyadoo dadka halkaasi laga badbaadinayo kuwa dhaawac ah iyo kuwa kale. tirada dhimatay markii hore wararku waxay sheegeen inay ahayd 21 ruux, laakiin dhaawacii cusla ayaa dadka dhimasho u keenay oo 36 markaa gaarsiiyey, iyadoo wasaaraddu weliba ay sheegayso inay dhici karto dhimashadu intaa inay kasii badato. maaha markii ugu horeysay ee tareenada waddanka ee Masaaridu ay isku dhacaan, laakiinse 2013 ayaa la xasuustaa in tareen uu ku dhacay bas weyn oo kuwa rakaabka ah, halkaasina ay ku baaba'een dad baska saara oo ka yimid xaflad aroosa oo markaasi dhacday. boqortooyada Morocco ee Waqooyiga Afrika ayaa waxay markii shanaad codsanaysaa arjina u qoratay xiriirka kubadda cagta ee dunida ee FIFA oo ah inay martigeliso 2026 tartanka koobka kubadda cagta ee dunida. wararka ka imanaya magaalada Rabat ayaa waxay sheegayaan in tallaabadani ay tahay mid ay u aragto Morocco inay ka soo bixi karto shuruudaha wadamada la martigelinayo, iyadoo weliba xilligaasi marka la gaaro tiradu ay ka badan doonto iminka wadamada ka qayb gala tartanka kubadda cagta dunida. wadamada Ameerikaanka, Canada iyo Mexico ayaa iyaguna qortay arjiga, iyadoo arjiga loo qoranayo 2026 martigelintiisu ay ku ekayd Jimcaha 11 bisha Agost.
xiriirka kubadda cagta dunida ee FIFA ayaa dhowaan waxa uu soo saaray hadal qoraala iyo go'aan lagu badinayo tirada ciyaaraha ka qayb gala oo ah 32 wadan ee tartanka 4 sanaba isugu taga in la badiyo oo laga dhigo 48 wadan marka la gaaro 2026 jawaabta muddo kadib ayaa la bixin doonaa oo ku beegan 2020 oo la sheegi doono dalka la siiyey inay martigeliyaan ciyaaraha 2026 qaaradaha aan ka qayb gelin tartankan loo gelayo 2026 waa qaaradda Yurub iyo qaaradda Asia sababna looga dhigay 2018 oo sanadka soo socda ah Russia inay martigeli doonto 4 sano kadib 2022 Qatar oo markaasi iyadu Asia ka socota warkii od kala socoteen telefishinka caalamiga ee Universal stuudiyaha ku yaala magaalada London intaa ayaan ku soo gabagabeynayaa daawadayaal kulankeena dambe inta aynu ka gaarayno biidnillaahi kariim waa anigoo ah Maxamed Axmed Xaaji Cagmadhiga iyo bahda wararka Universal oo idin leh isma aynaan dhaafina wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh